kusoo dhawaada muuqaalkan waxa ku saabsan yahay sheekada qaar kamid ah gabadha ay dhaleen madax Afrikaan ah oo qaarkood ilaa iyo hadda kursiga jooga. Qaar kamid ah gabdhahaasi oo la sheegay inay yihiin kuwa ugu quruxda badan ee ay dhaleen madaxdu. Waxaan ku eegaynaa warbixintan. Waxa hogaaminaysa Bono Mugabe. Bono Mugabe waa gabar u dhalay madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe. Waa madaxweyne ugu waqtiga dheer ee soo maray Zimbabwe waana aqoon-yahanka caanka ku ahaa sheeko xiriirooyinka mala'awaalka ah. ilaa iyo hadda sheekooyinkiisa laga maadeysto. Harare marka la joogo waa gabadha ugu soo jiidashada badan. Waxaana la isku raacay mid ka mid ah gabdhaha ugu quruxda badan ee ku nool Zimbabwe. Waxbarashadeeda jaamacadda waxa ay baratay xisaabaadka iyo maaliyadda finance. Waxay ka qaadatay jaamacadda City Hong Kong. Kadib waxa ay sii wadatay waxbarashadeeda sare ee bangiga iyo maaliyadda iyadoo ka baxday macadka maamulka ee Singapore. Hadda waxay ka shaqeysaa shirkadda caanaha ee la yiraahdo Alpha and Omega. gabadha labaad ee aynu muuqaalkan ku eegayno waa Elizabeth Sakwa. Waa gabadha u dhalay madaxweynihii hore ee dalka Nigeria Goodluck Jonathan. quruxleedan koobka quruxda ee Nigeria in ay u cararto ayaa mar la isku raacay inkastoo Elizabeth Sakwa ay dul hoganayaan warar xan ah oo la xiriira in gabadhan ay ku soo kortay qoyska madaxweynaha oo aysan dhalinba. inkastoo mawduucaas hadda warbixinteenu aysan daarnayn. waxbarashadeedii haddii aynu eegno jaamacadda Calabar ayay ka qaadatay shahaadada kadibna waxa ay sii wadatay waxbarashada sare. laakiin wararka xanta ah ee dul hoganaya awgood mar qura ayaa la waayay. xitaa heer sheekadoodu markii dambe ay gaartay in warbaahinta gudaha ay ka qoraan maqaalo dhowr ah kuwaas oo ay ciwaan uga dhigeen Awe Elizabeth. Tanina waa Isabel dos Santos. waxaa dhalay madaxweynihii hore ee dalka Angola José Eduardo dos Santos. Isabel dos Santos quruxda waxa u dheer hanti waa maalgashada shirkadaha macdanta iyo dahabka ee dalka Angola ugu caansan. waxaa la rumaysan yahay inay tahay haweeneyda ugu qanisan qaaradda Afrika sida ay qabto majalada Forbes. malaayiin dollar ayay hantideeda ku qiimaysay. maadaama aabaheed madaxweyne uu mar wadanka ka soo noqday waxaa lagu eedeeyay in lacagtaani ay tahay hanti dadweyne oo ay baanka dhexe ka cantoobsatay iyadoo adeegsanaysa awoodda ah gabar u dhalay madaxweyne. aabaheedna uu ahaa madaxweynihii ugu xukunka dheeraa ee soo mara wadanka Angola 1997 ilaa laga soo gaaray 2017 ayuu kursiga fadhiyay. gabadha kale ee warbixinteena aynu ku eegayno waa Brenda Bia. waxaa dhalay madaxweynaha wadanka Cameroon. waxa ay ku nooshahay Yaoundé Cameroon. waxaa la isku raacay inay tahay gabar soo jiidasho leh oo ay ka muuqato hantida qoyska madaxda ah ee ay ka dhalatay. waa dhowr iyo 20 jir saameyn sida u weyn aan ku dhex lahayn siyaasadda iyo qoyskeeda. marka laga tago quruxdeeda iyo sawiradeeda ay sida weyn ugu baahayso barta Instagram-ka, marmarna aabaheed ay ka difaacdo kuwa ay u aragto in xukunkiisa ay ka xun yihiin. balse sidoo kale waxaa la aaminsan yahay inay tahay gabdhaha ugu quruxda badan leh ee ay dhaleen mid ka mid ah madaxda Afrikaanka ee xilligan kursiga jooga.